maayo isagoo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayuu ugu horreyn u tacsiiyey dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo helada ay ka baxeen dhalinyaradii xalay ku geeriyootay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waana ayaan dar maalin walba inaan weyno dhalinyarada noocaas ahayd wax la beero iyo wax la abuuro waxa ugu fiican mujtamaca haddii mujtamacii maalin walba uu wajigaas nagaga dhacna waa wax dhibaatadeeda leh waana arrin aan horena uga hadlay inaan ka waantoono inaan tacsi dirno oon u baahannahay inaan fal fulino oon ka hortagno oon dagaalanno oo ina tacsidu nagu soo noqonin waxqabad iyo aan la nimaadno hawshaa inaan si dhab wax uga fulino sidoo kale madaxweynaha wuxuu shirkiisa jiraayad kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaanu isdul taagay arrimaha gobolka Gado oo madaxweynuhu sheegay inaan doorasho la qaban karin inta ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin gobolkaas waqtiga hadda aan ku jiro waa waqti aad u caqabad badan oo waqti doorasho mar haddii la galo waa arrin siyaasadeed oo ishaysad iyo farataagtaag iyo siyaasad iyo kursi laga bilaabo ka xildhibaanka iyo ka odayga iyo waa nasiib darro marka inaan garan weyno wixii aan shalay soo maray maanta deganaanshaha iyo xasiloonida aan helaynaa keliya waxay tahay deganaanshaha siyaasadeed iyo kala guurka siyaasaddu marba siduu ku yimaado iyo doorasho inay dhacdo oo kuga san waxaa la yidhi doorasho ha la qabto sidaa ha loo qabto state waliba 2 meelood ha lagu qabto aan idin weydiiya maanta guddi baa la iga sugayaa waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabanno waxaan samaynaa waxaa noo qiran 2 caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Galbeed ku qabanno Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jabadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabadii 9-aadkii la bilaabay maanta soo noqotay jabad wax lagu raadin karaa kuwa Jubbaland anagu aanan maamulayn ee Jubbaland xagee joogtaa doorashada aan qabanaynay waa in waxaan ku heshiinay dhacdo iga muuqda wareer Muqdisho loo kala harin waa in salaamaya salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal labada madaxweyne ee qada sharafta maanta lagu casuumay waxaan leeyahay tan ka weyn ayaa mudneedeen hadda soo sanad degdheer sheegay wax yaraaba ka dhimane xogaa muddada la sugayo dulqaadka xoogiisu wuxuu ku saleysan yahay in muddada ay dhamaanayso oo la sugayo runtii aad iyo aad waxaan uga xunahay ra'simaalkii bulsho ee dadkan ay lahaayeen sida ganacsiga oo ra'simaal u leeyahay ay arrimaha bulshada ra'simaal u leeyihiin ra'simaalkaas bulsho oo dadka Soomaaliyeed ay ehelka wada yihiin oo xigtada wada yihiin oo dhaqanka ay wada yihiin ay isugu dul qaadanayaan oo dawladnimada la jecel yahay oo dawladnimada la raadinayo dadka baahi u qabaan dawladnimada ra'simaalkaas bulshada rabnay inaan ku caano maalno oo danaheena anaga dhameysano laakiin hadda waxaa moodaa in safaarada ajnabiga loo baahday xilligan jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo qaar ka mid ah shacabka halkan banaanbaxa ku dhigaya oo warbaahinta la hadlay ayaa nala wadaagay dareenkooda iyo waxa ay ka banaanbaxayaan waxaa maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada Muqdisho in aan cadeyno shucuubteena ku aadan doorashada sida wada ognahay annaga waxaan nahay dad cashuur bixiyaala madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si sharaf leh ayaa ku soo dhaweynay wixii shacabkan ay ku soo dhaweeyeen iyo waxay ka sugayeen ma aysan ka helin wax badan ayaa loogu soo sabray haddii ahaan leedahay xagga amniga haddii ahaan leedahay xagga siyaasadda dibadda haddii ahaan leedahay xagga dhaqaalaha dalka haddii ahaan leedahay xagga shaqo abuurka 4 sano ku dhawaad wax uu ka qabta ma lahan intaas waa loogu soo sabray hadeerna wuxuu u soo tafaxigtay inuu boobo doorashadii qaranka Soomaaliyeed ka dhaxaysay shacabka Soomaaliyeed fagnaad lagu dhihin waxaan ka codsanaynaa dalkeen doorasho gaartiiso sida ay wada ogtihiin 10kii bishan November December ee nagu wada jirno waxa ku ekaa aqalka sare in la soo gabagabeeyo isbuucan gudihiisana loo dareero xubnaha baarlamaanka farmaajana soo wado kama ugama jeedno ugama dadkiisaan la soo fariistay waa soo dhageystay concerns badan ay qabaan iyo dareemo ay qabaan ay sheegeen wixii markaas taagnaayo haboonaayo ka xalli karnayna waa ka xallinay wixii markaas mustaqbali ahayna de aan xalli karin mustaqbalkan dib loogu dhigayo lama xallin maanta marka Gado waxay ka tirsan tahay 3 gobol ee Jubbaland ay ka koobantay mid ka tahay federalismkeena iyo dawlad goboleedadeena dhismayo ee urdanka ah mid aan dhexdeeda tabasha ka jirin ma jirto mid kasta dhexdeeda tabasha ka jirta Hirshabeelle Beledweyne waxa ka yeeray waad maqlaysaan maxaan ku raadayay galmudug muxuu ahay waa ogeedeen inta gaalkacyo iyo cadaadi iyo dhuusamareeb iyo wax la kala taagnay iyo wali waxba meelaha qaar kood ka jirood garanaysa
koonfur galbeed sidoo kale weli waa taagantahay mas'aladeeda maxaan ku idhahdaa shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo meel iyo dad badanaa konseen qabaa taagan meel aanu tabasha aanay ka jirin ma jirto madaxda dalka waxaa laga rabaa tabashadaas inay xalliyaana laga rabaa sida suurtagalka ah oo markaa lagu xalli karo inay ku xalliyaana la rabaa oo aan ahayn xoog xal ma keeno sidiisaba qof Soomaali ah maanta waa raacdeyn kartaa laakiin berri asoo intii ka carab badan oo ka xanaaq badan oo ka dhib badan kugu imaana oo ay u badan tahay inuu ajnabi wato dalka iyo dadka Soomaaliyeed aan isdhegaysano waa mahadsantiin taageeradan isdhegaysano laakiin marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno 40 maalmood ee soo socda waa inaan ka fikirnaa 4 sano iyo 40 sano ee soo socda sababtoo ah qaabka aan u maarayno iyo sida ay wax u dhacaan 40 maalmood oo soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka 40 sano oo ummadda Soomaaliyeed ku soo fool leh sida ay taariikhdu nabarayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya ay si kasta oo Soomaaliya dhibaato uga jirto 4 sanaba waxaa ka dhacda doorasho qori isu dhiib ah xukunka la isku wareejiyo taasoo naga hormarisay dalal badan oo Afrikaan ah tiina xal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeena dhibaato u keenayso dalkan in si nabad ah loogu soo dabaalo doorasho inay ka dhacdo xalaal ah la isla ogol yahay waxaan rabaa markii inaan idhaahdo xukunku waa qori isu dhiib qofba marayuu joogaa laakiin qof walba oo Soomaaliyeed waxaa la rabaa dalka inuu u turo cidda ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cidda markaas xukunka joogta taariikh baa dambayse ha ka tegin wax laga dido wiil yar oo Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya oo dhan fariintaas u diray oo la yiraahdo Laab Saalax qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu qaybtaas ka hadlo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh